asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan daawadayaal meel walba oo aad joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay warbixinada ku saabsan maxamed soomaali waxaa weli nooga sii socda meesheedii deeqdii walaalaha soomaaliyeed ee kusoo sadaqaysteen maxamed soomaali waxaan maanta tagnay xawaaladaha dahabshiil, xawaalada juba exprice, hodan global iyo xawaalada kah. waxaanu kasoo aruurinay walaalihii soomaaliyeed lacagihii ay soo direen. xawaaladahaas sida naga xasuus ah qaarkood lacago kale ayaa yaala oo waxaan filaynaa maalmaha soo socota inaanu kasoo qaadno. xawaaladaha aanu weli tegin oo lacago fara badan lagu soo diray waxaa ka mid ah xawaalada taj, xawaalada amaana, xawaalada mustaqbal, xawaalada tawakal iyo xawaalada amal. weli xawaaladaas mayna tegin, maanta iyo shalay way xirnaayeen qaarkoodna ma aysan helin lacagihii janjiga ahaa ama sarif ma aysan haynin. hadduu alla idmo daawadayaal, ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan ku balansannahay inaan maalinta beri ah dhakhtarka aanu ku celinno maxamed soomaali oo aan isbitaalka geenno. waxaan idiin soo gudbin doonaa beri toole sidoo kale warbixino ku saabsan caafimaadka maxamed soomaali. dhakhtarkiisa ayaanu soo wareysan doonaa oo aan idiin soo bandhigi doonaa waxyaabaha uu ka yidhaahdo caafimaadka maxamed soomaali. sidoo kale waxaan idiin soo bandhigi doonaa guud ahaan lacagaha ku bixi doona maxamed soomaali iyo lacagaha deynta ee lagu leeyahay. fadlan u dhunduleela, nala xisaabtama, ogaada waxaa xaq u leedihiin inaad wax walba oo information ah oo ku saabsan maxamed soomaali aada ogaataan. insha allahu tacaala waxaan hadda idiin soo gudbin doonaa walaalaha lacagaha kusoo dira xawaaladahaas, meelaha ay joogaan, lacagaha ay soo direen iyo weliba qaababka ay u kala soo direen lacagahaas inta ay la egyihiin. waxaan ku bilaabi doonaa xawaalada dahabshiil. xawaalada dahabshiil walaalaha wax kusoo diray haddaan bilaabo waxaa lamber 1 u ah walaalka la yiraahdo ismahaan maxamed qazaal. ismahaan maxamed qazaal waxa ay joogtaa USA ama Mareykanka. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $150 oo u dhiganta 631.50 ringgit oo lacagta Malaysia ah. aabaha maxamed soomaali ayaan guddoonsiiyey. maxaad ugu duceleed walaalkaas? جزاك الله خير. ولا شيء اسمها وحن لا إله يجري حسنات الله كاسيو إله أكو بركيو إن شاء الله ماشي جوكتنا الله يدنكو دقو مارتي إله يديق الله يدنكسي إن شاء الله بإذن الله الكريم. waa tahay walaalka kale cabdifataax maxamed waasuge waxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay lacag dhan $100 oo u dhiganta 421 ringgit oo lacagta wadankan ah. walaalkaas maxaa ugu ducey lahayd? waxaan leeyahay walaalkaas ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo. qof walba muslim ah oo maxamed soomaali wiilkayga soo caawiyey si uu niyadiisa jeceshahay allah u sahlo insha allah. sadaqadoodan ilaahay wuu ku liibaansiinayaa biidni illaahi kariim insha allahu tacaala. waa tahay waxaan ku guda jirnaa weli lacagihii maxamed lagu soo sadaqaystay iyo dadka soo diray. sucaad maxamed axmed waxa ay joogtaa Sweden. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $25 oo u dhiganta 105 ringgit. maxaa ugu duceleed walaashaas? waxaan leeyahay jazaaka allah khayr, ilaahay ajri xasanaad allah kaa siiyo, adigna ka badankiisa allah kusoo geliyo insha allah biidnillahi kariim. walaasha kale oo lagu magacaabo faadumo aadan waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $50 oo u dhiganta 210 ringgit oo lacagta wadankan ah. waxay faadumo ku nooshahay wadanka Mareykanka. maxaa ugu duceleed walaashaas? jazaakum allah khayr. faadumo waxaan leeyahay ilaahay ka badankiisa allah kusoo geliyo, ilaahay ku barakeeyo insha allah. waa idin soo duceynaynaa ani wiilkay maxamed soomaali. jazaaka allah khayr insha allah. waa tahay lacagihii xawaalada dahabshiil lagu soo diray intaas ayaynu maanta soo qaadnay daawadayaal. sidoo kale waxaa jira lacago kaloo lagu soo diray oo weli aynu soo qaadin, laakiin maalin walba lacagaha aan soo qaadno waan xusi doonaa dadka soo dira waana sheegi doonaa. sidoo kale waxaa jira dad aan meelaha ay joogaan lacagaha kusoo qorin oo lacagaha magacooda keliya kusoo qoray. sidoo kale informationka guud ee xawaalada aan ka helno ayaa mar walba idinla wadaagi doonaa. haddana waxaan soo gudagalnay walaalaha lacagta kusoo diray xawaalada kah. waa xawaalada kah walaalaha kusoo diray warda cali cabdulaahi. warda cali cabdulaahi waxa ay joogtaa Oslo, Norway. waxa ay soo dirtay oo maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $200 oo u dhiganta
840 ringgit. waa warda cali cabdulaahi waa warda cali cabdulaahi oo ku nool Oslo, Norway. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 200 oo dollar oo u dhiganta 840 ringgit. waa 200 oo dollar oo u dhiganta 840 ringgit. haye walaashaas maxaa ugu ducee lahayd? waxaan leeyahay walaashay wardo ilaahay ku barakeeyo, ilaahay maartay awlaadiina allah idin barakeeyo insha allah, ka badankiisna allah idin soo geliyo biidnillahi kariim. waa idin soo duceynaynaa insha allah. waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa lacagihii lagu soo diray xawaalada ka ah saamiya cabdi digile. waxa ay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 50 dollar oo u dhiganta 210 dollar 210 ringgit oo wadankan ah. waxay saamiya maxamed kusoo sadaqaysatay 50 dollar oo u dhiganta 210 ringgit oo lacagta wadankan ah. waxayna ku nooshahay Stockholm oo ah Sweden. Stockholm, Sweden ayay ku nooshahay saamiya. maxaa ugu ducee lahayd? waxaan leeyahay saamiyey allah ku barakeeyo insha allah, ka badankiisna allah kusoo geliyo. qof walba wax soo sadaqaystin waxaan leeyahay sadaqadiina allah idin barakeeyo, allah idinku nuuriyo insha allah. waa tahay sidoo kale walaasha kale ee lacagta kusoo sadaqaystay maxamed soomaali waa farxiya cali cabdi oo ku nool Canada. waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay 35 dollar oo u dhiganta 147 ringgit. waa 35 dollar oo u dhiganta 147 ringgit. walaashaas maxaa ugu ducee lahayd? waxaan leeyahay jazaakallah, ilaahay kaa sababsiiyo, ilaahayna maartay idin barakeeyo insha allah. qof walba oo yani maxamed wax kusoo sadaqaystay ilaahay maartay ka badankiisa allah soo geliyo insha allah. waa tahay walaalka ugu dambeeya ee xawaalada ka ah maanta aan kasoo qaadna lacagaha soo diray waa maxamed cabdi daahir. waxa uu ku nool yahay Finland. wuxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay 50 dollar oo u dhiganta 210 ringgit. waa maxamed oo ku nool Finland oo kusoo sadaqaystay maxamed soomaali 50 dollar oo u dhiganta 210 ringgit. walaalkaas maxaa ugu ducee lahayd? jazaakallah khayr walaalkay maxamed. waxaan leeyahay in ilaahay ka badankiisa allah kusoo geliyo insha allah. qof walba oo maxamed wax kusoo sadaqaystay oo ilaahay dartiis kusoo caawiyo waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo, ka badankiisna allah idin soo geliyo biidnillahi kariim insha allah. waa tahay daawadayaal waxaynu soo galnay intaas waxaa ku eg xawaalada ka walaalaha lacagaha kusoo diray. waxaan hadda soo guda galnay xawaalada Juba Express walaalaha lacagta kusoo diray ee maanta aan soo qaadnay. waxaa ugu horeysa Safiya Yusuf Roble. waa Safiya Yusuf Roble, Stockholm, Sweden ayay ku nooshahay. maxamed soomaali waxay kusoo sadaqaysatay 100 dollar oo u dhiganta 420 ringgit. waa 100 dollar oo u dhiganta 420 ringgit. walaashaas maxaa ugu ducee lahayd? waxaan leeyahay safiya ilaahay ku barakeeyo insha allah, ka badankiisna allah kusoo geliyo. waa idin soo duceynaynaa dhammaan intii muslim oo walaala soomaali ah oo kasoo qayb qaadatay biidnillahi kariim insha allah. badankiisa allah idin siiyo insha allah. waa tahay allah u aqbalo ducadaas walaalaha Soomaaliyeed. sidoo kale weli waxaan ku guda jirnaa xawaalada Juba. waa walaalka ugu dambeeya ee xawaalada Juba lacagta kusoo diray waa maxamed cabdulaahi maxamed. waxa uu ku nool yahay Ankara, Turkiga. wuxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay 50 dollar oo u dhiganta 210 ringgit. waa 50 dollar oo u dhiganta 210 ringgit. walaalkaas maxaa ugu ducee lahayd? jazaakallah khayr walaalkay, ka badankiisa adina allah kusoo geliyo. haddii arday aad tahan ilaahay maartay waxbarashadiina allah idin nuuriyo insha allah. waa tahay xawaalada Juba intaas ayay ku eg tahay walaalaha lacagaha soo diray. waxaa naga xasuus ah xawaaladahaas lacago kale ayaa lagu soo diray, welina ma aysan soo wicin. qaarkoodna wayna soo waceen. marka lacag walba maalin walba aan soo qaadno waxaan idin sheegi doonaa sida ay tahay informationka hadduu alla idmo. sidoo kale xawaalada Hodon Global ayaan soo guda galnay. Hodon Global walaalka ugu horeeya ee lacagta kusoo diray aan maanta aan soo qaadnay waxaa weeye Cabdulaahi Cali Erig. waxa uu ku nool yahay Stockholm, Sweden. wuxuu maxamed soomaali kusoo sadaqaystay 200 oo dollar oo u dhiganta 840 ringgit. walaalkaas maxaa ugu ducee lahayd? okay maxamed waxaan leeyahay jazaakallah khayr biidnillahi ilaahay ka badankiisa allah kusoo geliyo insha allah. intii muslimna kasoo qayb qaadatin waxaan leeyahay allah idin barakeeyo, ilaahay idinkana maartay wadankaa joogtiin allah idinku barwaaqsiiyo insha allah biidnillahi kariim. waa tahay walaalka kale ee kusoo diray xawaalada Hodon Global waa Faadumo
faadumo maxamed waxa ay joogtaa boosaaso waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $50 oo u dhiganta 210 ringgit walaashaas maxaa ugu ducey lahayd waxaan leeyahay walaashay faadumo insha allah ilaahay sadaqadaada ku anfaco ilaahay ka badankiisa allah kusoo geliyo biidni illaah ilaahay adin barakeeyo insha allah waa tahay xawaalada hodan global walaalihii lacagta kusoo diray intaas ayay ku egyihiin haddana waxaan soo gudagalnay walaalaha lacagaha kusoo diray xawaalada olympic waa olympic waxaa ugu horeeya nuuralcayn mayaan mire lacagta olympic lagu soo diray qofka ugu horeeya waa nuuralcayn mayaan mire waxa uu ku nool yahay qofkan norway wuxuuna maxamed soomaali kusoo sadaqaystay $50 oo u dhiganta 210 ringgit walaalkan maxaa ugu ducey lahayd jazaaka allah khayran leeyahay walaalkan ilaahay ka badankiisa soo geliyo ilaahay ha barakeeyo insha allah intii muslimka soo qayb qaadatay walaalka xiga ee ugu dambeeya oo xawaalada hodan kusoo diray lacagta wuxuu noqonayaa hodan dhagac cadde waxay maxamed soomaali kusoo sadaqaysatay $120 oo u dhiganta 504 ringgit waxayna ku nooshahay denmark walaashaas maxaa ugu ducey lahayd jazaaka allah khayr ilaahay ka badankiisa allah kusoo geliyo ilaahay waan kuu soo duceynay insha allah intii muslimka qayb qaadatay maxamed waa wiilkiini qof walba ilaahay dartiis wax kusoo sadaqaysto aakhiradiisa iyo adduunyadiisu ku meel maraa biidni illaahi kariim insha allah waa idin soo wada duceynayna ani wiilkay insha allah daawadayaal intaas waa xawaaladihii maanta aan kasoo qaadnay lacagaha waa xawaalada dahabshiil xawaalada olympic kah jubba iyo weliba xawaalada hodan global waa xawaaladihii maanta aan tagnay qaarkood lacago fara badan ayaa yaala daawadayaal waxaad haddaad tahay walaal soomaaliyeed oo lacag soo diray oo magaciisa inta aanan ka sheegin waxaad ogaataa lacagtaada way taallaa laakiin weli ma aysanan soo gaarin oo waxaa jirta xawaaladaha qaarkood inay xiran yihiin total waxaa jira xawaalado fara badan oo ay lacago badan yaalaan oo aynu weli tegin laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan waxaynu wadnaa dadaallo oo aan lacagahaas kusoo aruurin doono hadduu alla idmo sidoo kale waxaa jira oo xusid gaar ah mudan walaalo fara badan oo soomaaliyeed oo arday ah oo ku nool waddankan malaysia oo maxamed soomaali lacaga ugu deeqay waxaan rabnaa ayakuna inaan inta aan ka gaarno aan inta ka xusno hadduu alla idmo waxaan ku bilaabi doonaa walaalka ugu horeeya oo maxamed soomaali kusoo sadaqaystay waxuu magaciisa noqonayaa waa gabar arday ah oo waddankan wax ka barata magaceeda waxay naga codsatay inaynu sheegin waxa ay maxamed soomaali ku sadaqaysatay $25 oo u dhiganta 100 ringgit walaashaas u ducey jazaaka allah khayr walaashay waxaan leeyahay waxbarashadaada allah ku ziyaadiyo allah kuu fududeeyo insha allah sidaa niidaad jeceshahay waxbarashada reer inaad ka gaartid allah idinku anfaco insha allah waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa walaalaha soomaaliyeed ee ku nool malaysia ee kusoo sadaqaystay kaalmada axmed ibraahim afgooye waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata waddankan malaysia wuxuuna maxamed soomaali ku sadaqaystay $100 oo u dhiganta 420 ringgit walaalkaas maxaa ugu ducey lahayd walaalkay waxaan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay waxbarashadaada nuur allah kuu saaro insha allah sida niida ay jeceshahay allah kuu yeelo insha allah waa tahay sidoo kale cabduqaadir mayow wuxuu ka mid yahay ardayda wax ka barata waddanka malaysia wuxuuna maxamed soomaali ku deeqay ama uu ku sadaqaystay $25 oo u dhiganta 100 ringgit walaalkaas maxaa ugu ducey lahayd walaalkay waxaan leeyahay cabduqaadir ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay waxbarashadaada nuur allah kuu saaro insha allah waa tahay weli waxaan ku guda jirnaa walaalaha soomaaliyeed ee ku nool malaysia ee maxamed soomaali lacagaha ugu deeqay ama ku sadaqaystay walaalka xiga waa guuleed maxamed rashiid waxa uu ka mid yahay ardayda wax ka barata waddanka malaysia wuxuuna maxamed soomaali ku sadaqaystay $25 oo u dhiganta 100 ringgit walaalkaas maxaa ugu ducey lahayd waxaan leeyahay walaalkayow ilaahay jazaaka allah ilaahay ajri xasanaad allah kaa siiyo ilaahayna waxbarashadiina allah idin fududeeyo insha allah sidoo kale axmed mawliid daahir waxa uu ka mid yahay ardada wax ka barata waddanka malaysia wuxuuna maxamed soomaali ku sadaqaystay $25 oo u dhiganta 100 ringgit walaalkaas maxaa ugu ducey lahayd waxaan leeyahay walaalkaas ilaahay ha ku barakeeyo ilaahay maarta waxbarashadaada nuur allah kuu saaro insha allah intii ka qayb qaadatay walaalahay waddankan hadda malaysia ku nool ardayada waxaan leedahay ardayada ilaahay maarta waxbarashadiina allah idin barakeeyo insha allah
waa tahay ilaahay ha u aqbalo walaalaha soomaaliyeed ducadaada. walaalka xiga waa cabdikariin mustaf, wuxuu ka mid yahay ardada wax ka barata wadanka malaysia, wuxuuna maxamed soomaali ku sadaqaystay $25 oo u dhiganta 100 ringgit. walaalkaas maxaa ugu duceyn lahayd? waxaan leeyahay walaalkayga ilaahay ajri xasanaad allah kaa siiyo, ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahayna waxbarashadiina allah idin maaragtay idin nuuriyo insha allah biidni illaahi kariim. sidoo kale daawadayaal waxaynu ku guda jirnaa walaalaha soomaaliyeed ee malaysia ku nool lacagihii ay kusoo sadaqaysteen maxamed soomaali. walaalka xiga waa cabdiraxiin raage. cabdiraxiin raage wuxuu ka mid yahay ardayda wax ka barata wadanka malaysia, wuxuuna maxamed soomaali ku sadaqaystay $12.5 oo u dhiganta 50 ringgit. walaalkaas maxaad ugu duceyn lahayd? waxaan leeyahay walaalkay ilaahay ajri xasanaad allah kaa siiyo, ilaahay maaragtay waxbarashadiina allah idin barakeeyo insha allah. walaalka xiga waa macalin maxamuud, wuxuu ka mid yahay ardada wax ka barata malaysia, wuxuu sidoo kale maxamed ku sadaqaystay $12.5 oo u dhiganta 50 ringgit. walaalkaas maxaa ugu duceyn lahayd? jasaaka allah khayr. walaalkay waxaan leeyahay ilaahay maaragtay waxbarashadiina allah idin fududeeyo biidni illaahi kariim. intii ka qayb qaadatay intii haddeertaan aan sugayno waxaan leenahay ilaahay maaragtay meel dhow allah idin soo dhigo. qofkaad wax ku caawinaysaan waa wiilkiini maxamed soomaali, ilaahay dartiisna loo soo caawiyo insha allah, waa idin soo duceynaynaa biidni illah. waa tahay allah u aqbalo ducadaada walaalaha soomaaliyeed. sidoo kale balqiiso bicole waxay ka mid tahay ardayda wax ka barata malaysia, waxayna maxamed soomaali ku sadaqaysatay $25 oo u dhiganta 100 ringgit. walaashaas maxaad ugu duceyn lahayd? jasaaka allah. walaashay waxaan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay waxbarashadaada ha ku anfaco, ilaahay adin nuuriyo insha allah. waa tahay walaalka xiga wuxuu noqonayaa umulkhayr bicole waxay ka mid tahay ardada wax ka barata malaysia, waxayna maxamed soomaali ku sadaqaysatay $25 oo u dhiganta 100 ringgit. umulkhayr maxaad ugu duceyn lahayd? waxaan leeyahay umulkhayr ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay waxbarashadaada allah kuu nuuriyo insha allah. sidoo kale daawadayaal waxaa jira arday fara badan oo soomaaliyeed oo ku nool wadankan oo qaarkood aan jecleen in magacyadooda la sheego sadaqada awgood, oo waxay leeyihiin qaarkood ma rabno in magacyadeen la sheego. dadkaasaan rabaa sidoo kale inaan si gooniya u xuso gabdho soomaaliyeed oo issoo xilqaamay oo macnaa maxamed soomaali u yimid ayaa waxay ku sadaqaysteen $100 oo u dhiganta 420 ringgit. si gabdhahaas ay isku xasuustaan una ogaadaan gabdhaha inay ka duwan yihiin, waxay ka imaadeen gobol malaysia wax yar u jira, ama meel malaysia wax yar u jirta oo la yiraahdo sardaan. waa sardaan oo u dhow malaysia. gabdhahaas 4 ayay ka koobnaayeen. maxamed soomaalina waxay ku sadaqaysteen $100 oo u dhigata 420 ringgit. walaalaha soomaaliyeed maxaad ugu duceyn lahayd? jasaaka allah. aan leeyahay walaalahayga inta waqtigooda ay soo dhumiyeen ilaahay ajri xasanaad allah ka siiyo, waxbarashadoodana allah u siyaadiyo biidni illah. waa tahay ismaaciil mayow waxuu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku nool wadanka malaysia, wuxuuna maxamed soomaali ku sadaqaystay $25 oo u dhiganta 100 ringgit. walaalkaas maxaa ugu duceyn lahayd? jasaaka allah khayr. walaalkay waxaan leeyahay ka badankiisa allah soo geliyo insha allah, waa u soo duceynay aniga wiilkayga. sidoo kale walaalka kale waa cabdirasaaq cali maxamed. wuxuu ka mid yahay ardada soomaaliyeed ee wax ka barata wadanka malaysia, wuxuuna maxamed ku sadaqaystay $50 oo u dhiganta 100 ringgit. walaalkaas maxaa ugu duceyn lahayd? jasaaka allah khayr. walaalkay waxaan leeyahay allah ku barakeeyo, ilaahayna waxbarashadiina allah idin nuuriyo biidni illah. sidoo kale waxaa jirta gabar kale oo soomaaliyeed oo maxamed soomaali soo booqatay. waxay gabadhaas codsatay inaan magaceeda la sheegin. waxa ay ka timid Sweden, waxayna u timid halkan walaalkeed oo xanuunsan oo ay malaysia kusoo booqatay. waxay gabadhaas maxamed soomaali ku sadaqaysatay $100 oo u dhiganta 420 ringgit. walaasha soomaaliyeed maxaad ugu duceyn lahayd? waxaan leeyahay walaashay jasaaka allah khayr, ilaahay ha ku barakeeyo, ilaahay adin muraadka leedahay allah kuu saqro biidni illah insha allah. waa tahay sidoo kale waxaan ku guda jirnaa dadkii walaalaha soomaaliyeed ahaa oo malaysia joogay oo maxamed soomaali kusoo sadaqaystay deeqdan. waa muniira waxa ay ku nooshahay malaysia, waxay maxamed soomaali ku sadaqaysatay $25 oo u dhiganta 100 ringgit. muniira maxaa ugu duceyn lahayd? jasaaka allah khayr. walaashay allah barakeeyo, ilaahayna maaragtay qof walba niyadiisa waxay jeceshahay allah u yeelo.
sidoo kale waxaa jira gabdho kale oo Soomaaliyeed waxaad moodaa gabdhuhu inay sadaqada jecel yihiin tan qarsoon oo magacyadooda aan la sheegin waxaa jira gabdho Soomaaliyeed oo wadankan jooga Malaysia ku nool oo Maxamed Soomaali xaafadda ku soo booqday waxay ku kala deeqeen gabar waxay ku deeqday 100 ringgit oo u dhiganta $20 waa $20 oo u dhiganta 100 ringgit ayay gabar ku deeqday sidoo kale laba gabdhood oo isla socday waxay Maxamed Soomaali ku deeqeen oo ay macnaa ku sadaqaysteen $50 oo u dhiganta 210 ringgit sidoo kale laba gabdhood oo kale oo Malaysia wax ka barta oo iyakuna naga codsaday inaanu magacyadooda sheegin xitaa waxaan ka codsanay si macnaa wax walba ay u noqdaan transparency ama dadku ay u ogaadaan waxa ay diideen in macnaa sadaqadooda la shaaciyo oo magacyadooda la ogaado sidoo kale labadan gabdhood waxay Maxamed Soomaali ku deeqeen ama ay ku sadaqaysteen $50 oo u dhiganta 210 ringgit waxay total noqonaysaa $125 oo u dhiganta 520 ringgit waa 520 ringgit oo lacagta wadankana dollar aanna waxay noqonaysaa $125 walaalaha Soomaaliyeed ee isugu jira gabdhaha tirada badan maxaad ugu ducay lahayd jazaaka allah khayr walaalahay waxaan leeyahay oo Malaysia ku nool insha Allah qof walbo Maxamed soo caawiyay ama wax ku sadaqaystay waxa waaye ka badankiisa horta wuu helaa insha Allah sadaqada uu dhedheel ma ahan qofkii maanta wax dhiibto yar iyo badnaan ma u kala baxsana ducada waa sadaqo lacagna waa sadaqo wax walba waa sadaqo marka insha Allah intii ka qayb qaad waxaan leeyahay jazaaka allah khayr Allah idin barakeeyo haddana kulleetii waxa waaye waan sugeynaa inta kale noo dhiman insha Allah wiilkay Maxamed Soomaali kulleetii waa biidnillah uu bilaawi doonaa caafimaadkiisa bari hadduu ilaahay raal ka noqdo waan jecelnahay wixii faafaahin waa idin soo gudbinaa insha Allah daawadayaal waxaa naga xasuusa maalinta beri ah waxaan balansannahay dhakhtarka Maxamed Soomaali waxaan jecelnahay hadduu alla idmo inaan sidaan si lamida in kugu soo gudbino warbixinada quseeya dhakhtarka Maxamed Soomaali iyo caafimaadkiisa hadduu alla idmo lacagaha ku bixi doona Maxamed Soomaali waan idiin soo sheegi doonaa hadduu alla idmo lacagaha deynta oo lagu leeyahay cadeymadooda waa soo bandhigi doonaa information walba oo Maxamed Soomaali ku saabsan insha Allah tacaala waan idiin soo bandhigi doonaa waxaa jira oo inaga xasuus ah xawaaladaha aanu hadda sheegnay oo walaalaha Soomaaliyeed lacagaha ay ku soo direen kuwii shalay iyo kuwii maantay qaarkood lacaga kale ayaa yaala waxaanu sheegi doonaa information walba maalinta aan soo qaadno lacagaha waxaa kaloo jira xawaalado kale oo aynu wali tagin oo ay ka mid tahay xawaalada Taj xawaalada Mustaqbal Amaana sidoo kale aman lacaga ayaa yaala توكل لعجة أيها يلا يحوالدها كلو هذا عن لعجة كسر قادني أن جودهان لقطة أيام صومر سين دون هدو الله إدمه لعجها محمد أصاد عنا مانن والبا ديل ريبود أيام إدين سو جود بين دونا هدو الله إدمه سيدو كله واحد جرا ولا لا كله أو markii warbixintan ay maqleen maalmihii ugu horeeyay Maxamed Soomaali lacaga u soo dhigay labada xawaaladood oo kala ah Dahabshiil iyo xawaalada Taj walaalahaas waxa lacagaha soo qaaday walaal lagu magacaabo Cabdullaahi iyo Axmed Jeelani oo ah Maxamed Soomaali aabihiis maalintaas rasiid ma aysan soo qaadin oo xawaaladu aad ay jaam u ahayd laakiin shalay ayaanu dib ugu laabanay waxaana ka codsanay inaanu rasiid helno si dadka Soomaaliyeed ay u noqdaan dad macna ku kalsoon lacagaha ay soo dirayaan meelaha ay ku soo hagaajiyaan lacagtaas waa lacag inta dhan waxay u dhigantaa $740 waaye waa $740 oo u dhiganta 3,100 ringgit waa 3,100 ringgit oo u dhiganta dollar ahaan marka loo bedelo $740 wali rasiid ma hayno lacagtaas nala ogaada daawadayaal meel walba aad joogtaan rasiidkeeda dhawaan ayaan soo bandhigi doonaa maamulka xawaalada Dahabshiil iyo maamulka xawaalada Taj waxaan ka codsanay inaanu rasiid helno laakiin waxayna yiraahdeen bisha oo kow ah iyo xawaaladaha oo aad macna dadku ay macna biilashooda uga soo doonanayaan ma awoodna ay yiraahdeen inaan hadda idin baarno lacaga maalmo ka hor ah oo systemka aad ayuu u buuxaa laakiin waxay noo balan qaadeen in maalmaha soo socda aanu heli doono ay nasiin doonaan rasiidka lacagahan waan idin soo bandhigi doonaa waan sheegi doonaa waan ognahay walaalo fara badan oo lacaga u soo diray oo markii ugu horeysay bishii hore aakhirkeeda ilaa bishan horaanteeda lacagaha soo diray oo wadamada Mareykanka iyo Yurub iyo Australia iyo Africa meelahaas ku nool
oo lacagahoodii weli aanu shaacina jiro lacagahan inay ku jiraan ayaa laga yaabaa waan soo bandhigi doonaa noo dulqaata waxaan idinka ballan qaadeynaa oo ilaahayna la ogyahay in 10 ringiid hadday maxamed soo gaarto aynu soo bandhigno lacagtaas cidda soo dirtay meesha laga soo diray iyo weliba sida ay nagu soo gaartay intuba noo dulqaata insha allahu tacaala bini aadan ayaynu nahnay wixii naga dhaca waan sixi doonaa oo qalad ah insha allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa in walaalaha soomaaliyeed ay maxamed soomaali kusoo sadaqaysan doonaan deeqahooda fadlan waxaan idinka codsanaynaa maxamed soomaali wuxuu u baahan yahay gacantiina wuxuu u baahan yahay deeqdiina wuxuu u baahan yahay inaad maskax iyo maalba ku caawisaan waa dhibano soomaaliyeed oo gacantiina sugaya maalinta beri ah wixii ka dambeeyana wuxuu maxamed soomaali isbitaalka u jiifi doonaa ummadda soomaaliyeed hadduu alla idmo fadlan ku soo caawiya maxamed soomaali waxaad awoodaan ogaada sadaqada gacanta baxsanaysa iyo gacanta lagu baxsanayo waxa u dhexeeya waa qalad qof walba oo lacag usoo diraya maxamed soomaali waxaan ka codsanaynaa inuu kusoo hagaajiyo aabihiis axmed jaylaani maxamed nuur ama wuxuu kusoo qori karaa maxamed soomaali ama maxamed axmed jaylaani oo ah maxamed soomaali wiilka yar ee xanuunsan fadlan kusoo sadaqaysta sakada wax qof walba oo dhiban oo ilaahay macnaa dee ummadiisa in uu macnaa caawiyo rabo ha kusoo sadaqaysto maxamed soomaali wuxuu awoodo insha allahu tacaala waxaan idiin soo bandhigi doonaa fariimo ku saabsan maxamed soomaali warbixinada maxamed soomaali ma hakan doonaan caafimaadkiisa meeshuu marayo maalin walba waxa kusoo kordha waan idiin soo bandhigi doonaa hadduu alle idmo maalinta beri ahna maxamed soomaali dhakhtarkiisa ayaynu la kulmi doonaa waxaan idiin sii ballan qaadaya hadduu alle idmo annagoo turjumin luuqadda ingiliishka isagoo ku hadlaya inaan turjumaadda ka dhigno af soomaali oo qoraal ahaan aan u turjunno isagoo luuqadda ku hadlaya si aad u fahantaan xaqiiqda jirta insha allahu tacaala ballanteenu waa maxamed soomaali oo aad soo caawisaan waa hagaag daawadayaal sidaad ujeedaan waxaa ila fadhiya oo labada dhinac iga fadhiya aabe axmed jeelaani oo ah aabbaha dhalay dhibane maxamed soomaali oo aada wada taqaanaan warbixinadiisana aada wada haysaan mucaawinadii ama deeqdii walaalaha soomaaliyeed ay soo gaarsiiyeen maxamed soomaali oo aan maanta xawaaladaha dahabshiil xawaalada hodan global xawaalada jubba iyo xawaalada kaah aan kasoo qaadnay waxaa isku noqotay total ahaan 2,600 oo dollar lacagaha aan maanta soo qaadnay waa 2,600 oo dollar oo u dhiganta 10,920 ringgit waa 2,600 oo dollar oo u dhiganta 10,920 ringgit waxaa naga xasuus ah xawaaladaha qaarkood oo sarifka si kala duwan u kala bixinayay qaarkood sentiyo ayay isdheeraayeen oo macnaa meesha aan doolarka malaysia markaan ka hadleyno 100 dollar xawaalad ayaa waxay ku sarifaysay 4,420 ringgit waa 100 dollar waxay ku sarifaysay xawaalad qaarkood 420 ringgit halka xawaaladaha qaar 100 dollar ay ku sarifayeen 421 iyo sentiyo qaarkoodna 421 haddaad aragto different yar ama farqi yar oo sarifka ah wuu jiraa la socda daawadayaal lacagtii aan maxamed soomaali usoo aruurinay oo noqotay lacagtan aa ujeedaan oo 2,600 oo dollar oo singid ahaan marka loo bedelo ama lacagta malaysia noqonaysa 10,920 ringgit oo lacagta waddankana waxaa ku wareejinay oo haya aabbaha maxamed soomaali waxaan kaa codsanaynaa axmed jeelaani si dadweynaha soomaaliyeed ee ugu qancaan in adiguna aad kusii wareejiso ama aad macnaa gacanta u geliso maxamed soomaali si ay u arkaan adiga iyo wiilkaagu inay deeqdii ay soo direen walaalaha soomaaliyeed ee maanta aan xawaaladaha ka soo qaadnay in gacantiina aan kusoo salinay oo aada haysataan bal waxyar bal maxamed soomaali haye maxamed dabcan waxaan filayaa deeqdii walaalaha soomaaliyeed ay kuu soo direen waad heshaan filayaa waad ku faraxsan tahay caafimaadkaaga insha allahu tacaala wuu fiicnaan doonaa maxaad ugu duceyn lahayd maxaana dhihi lahayd walaalaha soomaaliyeed ee deeqda kuusoo diray khayr ilaaha siiyo maasha allah aad ay umahadsan tahay daawadayaal aabe axmed jeelaani duco guud ha idiin duceeyo fariin guudna ha idiin diro si aan usoo gebagabeyno barnaamijka jasaak allah kheyr walaalaha soomaali meel walba ay joogaan 100% waxaan aad iyo aad ugu duceynaynaa ani wiilkay maxamed soomaali
inuu ilaahay qof walbo wuxuu muteysan yahay ama niyadiisa yacni ku taagan tahay inuu ilaahay u saqiro hadduu arday yahay hadduu yacni shakhsi shaqaale yahay hadduu yahay qof wax sugayo ilaahay waxaan leeyahay amuurahooda inuu ilaahay u sahlo aniga waa u soo duceynayaa wiilkayna waa u soo duceeyey ducada keliya ma ahan mid afka laga sheegayo waxaan ka soo duceynay qalbiga iyo caloosha maxamed soomaalina maanta aad iyo aad ayuu u dareensan yahay walaalihiisa ama adeer ama abti ama abaryar kulli ama eedo in aad iyo aad macnii garabkiisa ay taagan yihiin maantana waxaan kalsooni aan ka helnay walaalaheena soomaali weyn inaan maaragtay isbitaalkii wiilkay maxamed soomaali ayaga u jiifaan oo haddana u geli rabo biidni illaahi kariim insha allah naga soo warhaya anigana waa kaa kulleyta aabbo wax dhalyaan ahay inaa waxaad i ogtiin wiilkayga inaan maaragtay labada gacan ku qabto asoo caafimaad qabo inuu ilaahay maaragtay insha allah insha allah aad ayaad umahadsan tahay aaba axmed jeelaani waxaa hubaal ah caruur markii aan ka hadleyno dhammaantiin waxaa laga yaabaa inaad waalid tihiin ama aada jeceshiin inaad waalid noqotaan caruurta waalidkood wax ka jecel ma lahan aabe ama hooyo caruurteeda kuweyshin laga geliyana waa dareemi kartaan xanuunka uu leeyahay daawadayaal waxaan ka codsanaynaa si xushmad iyo tixgelin ku jirta walaalaha soomaaliyeed ee sadaqada baxsanaya in sadaqadiina aada usoo niyootaan maxamed soomaali oo aadan wargelin haddii aad sadaqo baxsanaysana fadlan waxaan kaa codsanaynaa in aabbaha soomaaliyeed ee axmed jeelaani aad kusoo hagaajisaan taleefanada shaashada ka muuqda ayaad ugu soo diri kartaan oo aad kasoo wici kartaan iimaha feebarka whatsappka facebooka koolinka caadiga intuba waa kasoo wici kartaan waxaad dhihi kartaan videoga noo fur wiilka waad arki kartaan waalidka u tihiin waa baran kartaan waa fiirin kartaan fadlan waxaan idinka codsanaynaa in walaalka soomaaliyeed maanta ayuu noo baahan yahay maxamed soomaali aabihiis inaan garab istaagno waad aragtaan lugta maxamed soomaali waa lugtii oo baabuurka ka jaray oo ka dardaray qaliin ayaa lagu sameeyey marka hore waa isku dheganeed waa la furay oo waa la qalay inta way ka qaloocan tahay oo qalooc ayaa ku jira weyn oo cirib dhan ma lahan lugta waa la jebinaa lugta hadduu alla idmo siduu aabihiis inoo sheegay halkan aad ujeedaan sidoo kale waa meeshii maqaarka looga fiiqay oo maqaarka inta lagu dhejiyey weli waxaa waaye waa fashfash iyo waxaa ka muuqda iyo daryeel xumo caafimaad oo aada u badan insha allahu tacaala maalinta beriya ayaan jecelnahay inaan isbitaalka jiifino oo dhakhtarka caafimaadkiisa aan kusoo celino insha allahu tacaala nagu garabsiiya annaguna waxaan idinka ballan qaadeynaa in aan xaaladda maxamed soomaali idinla socodsiino hadduu alla idmo oo mar walba warbixinadiisa iyo videogiisa iyo waliba informationka hoose iyo midka guudba aad wada ogaataan si cad oo muuqata oo transparency hadduu alla idmo waxaad kala soo xiriiri kartaan lambarada shaashada inkaga muuqda sidoo kale cidda aan awoodin inay xawaalad kusoo diraan lacagahooda waxa ay kusoo diri karaan akoonka shaashada inkaga muuqda oo ka furan xawaalada dahabshiil akoonkaas waad kusoo shubi kartaan haddii aad kusoo dirto magacaaga iyo meesha aad joogto iyo lacagta aad soo dirtay sidoo kale inta ayaan ka sheegi doonaa fadlan aan u istaagno oo aan badbaadinno maanta maxamed soomaali hadduu alla idmo balanteenu waa inaynu maxamed soomaali badbaadinno waxaa inoo balan ah warbixintan oo kale ah oo ku saabsan maxamed soomaali iyo maalinta beriya insha allah wabilaahi towfiiq